السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتيdan jeclahay meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada hambalyada aroos aan u diraayo walaalkeyga Cabdalla Maxamed Mursal iyo dumaashideeda Maryan Ibraahim Xasan oo ka dhacay arooskooda magaalada Muqdisho gaar ahaan Madiino degmada Wadajir hotelkii Milaayo. waxaan leeyahay guurkiina guur qeyr gurigiina guurinagay guulow ka yeel hambalyo 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 waana kana ani yariisiya meeshaan fadhino dad kale ma joogaan hoolkii waaye himilo alla hoolka marka waa kasee aaminayana inta iskaga babaashaaloon dadka ma jecel intii la duubo hoolka intii la soo galin ka hor yarsan iska dhahana waa iska joojin kaamirada ilaan qof kasta ma jeclo intii ku qasabnana ma ahan hambalyo waxaan leenahay guurkiina kii lagu farxay Ilaahay ka dhigo wiili caani gabar caano isku waara bash iyo barwaaqo ubad qeyr qaba kala hela insha Allah dadkii isku duqoobo oo waligood isla jira noqdo insha Allah waakani yariisi intaas kaga babaashaaloona saa u jeedin saxaabteeda waa nin jeclahay please haddii aragtiin subscribe ka yaa liiga hilmaamin haddii hambalyo la wadan subscribe ma la dhaafi karo like na ha iga hilmaamin insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dadkii ku dhihi jira ma dhasho maanta maxay ku dhihayaan dhasha Ilaaha bixiyo Amiro halo share gale halo geeyo haddii videoga aragtiin Amiro haliigu geeyo hambaliyada ha iga gudoonto qosolkii waa ka maqan yahay Ilaahay qosolkaaga samsamaha kuugu soo celiyo hambaliyaan ku dhaha subscribe halii saaro subscribe haddii ii saarti maxaa ka halaaway walaalkee iyo walaashay. السلام عليكم أصحابتي سيتهين ملفيعنو أنا كوافيعنا هاي إذن كانوا حانين رجين وياسدين سيكفيعن إن شاء الله مركع عوض انتو حالو فقديا مكسيسين هاي همبالي أميرة قروح وعقش وكاسو داهي جندر ريفيل كاسوغا إلا هدم فأنت مركع waa ka soo tahay marka hambalyan ku leeyahay waxaan ku rajeynaa fiyo Ilaahay inta ka dhigo nuuneeda ama nuunoog labada wuxuu yahay Ilaahay anoo caafiyo Ilaahay noo soo barbaariyo kii oo hooyadiis oo ku soo rafaad aabihiis iyo dadkiis kale anfaco naftiisana anfaco wadankiisana anfaco diintiisana hee u dhinto diintiisana taageero diintiisana difaaco Ilaahay kaaga dhigo baari Ilaahay kaaga dhigo walaashay ya ilmaha waa la iska dhalaalay ma Ilaahay baari ha kaaga dhigo hambalyan ku leeyahay waa kaa soo dahay sorry hee tan kale aan rabo waxaan hambalyo kun mar horta baydis tan kale aan rabo inta ka sheegan wax waay dadkii ku dhihi jira ma dhasho maanta maxay ku dhihayaan Ilaahay qafuur raxiim waa kas Ilaahay qafuur raxiim waa waqtiga hore dadka wax siinaa waqtiga hore ma siinaa no dadkii ku dhihi jira aniga youtube-kan wax kasta waa laga maqlaaya kuwa dhihi jira ma dhashadaas maanta maxay dhahooyin marka dadka maqashada dhahay halaga dhaafo wixii soo daaha khayrku ku jira gabdho badan ama dhasha laha meeshan ka dhex maqlay wallahi marka oo uurka maqalna aada ugu faraxna koo horta uur kasta waa lagu faraxaa tan labaadna ma dhashadii lagu dhahay hadii Ilaahay ka bixiyay dadkii oo saas ku dhahayeen Ilaahay wax tusay waa ku faraxsanahay wallahi wax dad badan ka maqlay magacayaashooda ma soo sheegay laakiin taas ma dhashadaas ninkeeda hore xataa wuxuu aaga tagay
cunug la'aanta markii lagu dhaadiyo waa maqlaysay of course waa la maqlaa wixii la sheego waa la maqlaa laakiin shibaa ka dhacday ku daysanin alxamdulilah ilaahayna waa kan ilaahayna waa ku irsaaqa ilmo marka ilmihii aa ku anfacsanayd insha Allah ilaahay ka dhigo umul fiyo ilaahay ka dhigo cunugana caafimaad cimri dheer cibaado sana u toogeena marka kii oo anfacsatay oo qaboobsatay qurratu acyun ku ilaahay indhaha qaboojiska ilaahay kaaga dhiga baydis hambalyan ku dhaha aan wallahi hambalyada waa u soo gal laakiin taas tan ka weyn u soo gal waxa way dadkii ku dhihi jiray ma dhasho hadalkaas weyn iyaga ma hay dhasha waa maya ilaahay marka ilaahay waa kan qofka roona siina qofkii oo laga sabro oo tama dhaleys la dhahay waa siina qofkii oo waa dhaleys dhahay ma siina dooro marka ilaahay shaqadiisa yaan galin ilaahay aan ka cabsano ma dhashiyaal dhihin adoo ma dhasho dhahda kuwi aa dhasho shantii xabo guriga ku joogto laga aruursan kara hal mar marka gabdhaha laga dhaafsiiba gabdhaha ku dhib ku qabo laba dhinac intee tahay dhamma ugabo gabar kaligeed intee wax dhalaysaa loo maleynayaa niman ma dhala qof dhahay ma arkaysid laakiin gabar haddii la soo guursadaba hay naagta uurin kuu qaata ma dhalaysa too kale ma karaadis in leelaa maybe dhinaciis ma dhibka jiro maybe iyada miya waqtigooda ma dhiman ma la dhahay marka intii kusii dheeraadana maraba gowdha laakiin dhasha ilaaha bixiyo ma dhashada aad dhehaysiin ha laga digtoonaado dadka qalbiga ka jabaayo waxay gacantooda ku haystaan ma ahan maasha Allah amiiradina waxaan kuu rajaynaynaa dhalyaal badan kale oo khayr qaba inkastoo soo aragtay foosha dhadhamise laakiin cunugna waa la iska rabaa lemo amiira quruxey hambalyo insha Allah kii aa ku neebsatay ilaahay kaaga dhiga hambalyan ku leeyahay walaashay intaana usoo galcawada waa mahadsantihiin haddii intaan soo gaarteen please cawada hergebmiya mood dhuunta ijaran koodhe barafaas isku qabowga wacabayo dhuunto igooyo marka amiiro haloo sheergale haloo geeyo haddiiba videoga aragtiin amiir haliigu geeyo hambalida ha iga gudoonto ma fahanteen amiiro hambalyan ku leeyahay umul khayr qabto umul fiyow ilaahay kaa dhigo insha Allah qosolkaaga waa waxiisnaya ama codkaaga go'san ma ogi markii foosh ma si fiican qaylis ma ogi qosolkii waa kaa maqan yahay ilaahay qosolkaaga samsama kuugu soo celiyo hambalyan ku dhaha marka maxaan ku dhihi karaa bye bye